waxaan idhi buu yidhi ilaahay baa xaaladeeda og alla makhluuqiisa abuura إنها كانت سوامة قوامة عفيفة لا تقر من منكرا وتأمر بالمعروف وحان ذبو يري قبضنا وحياه قبض سوامه الصوم بدن قبض قوامه صلاة مرول بيسكو تكتو صلاة بدن قبض عفيفة دور صوم بيهيد منكر ميسن قري جرين markay munkar adagto way radin jirtay dadka uu sheegi jirtay dadka wanaagga amri jirtay wuxuu dabada ka raaciyay ilaahay ma hoojinayo waligi gabadhaas kadibna wuu istaagay xaqi qabrigii buu aaday qiiq ka baxay waxa raacay caruurtii eedooyinkii ay dhaleen markaan qabrigii gaaray buu yiri ninkii ba hadalkii wada ninkii wuxuu markaan qabrigii gaaray amiirul mu'miniin oo baan qabrigii qoday حتى وصلت إليها فهي ميتة جالسة وابنها هذا الذي معي حيا عند قدميها وحول مركان قبري قاري باوحانو تغي حاسكيغي او ميد اهو دمتي لكن فددا إنن كان نول يهي uuna joogo labadeeda lugood hoosteeda subxaan allah wa idaa munaadi yunaadi kadibna waxay dhawaaqay midii dhawaaqay wuxuu ugu yidhi hebelow amaanadaad ilaahay u dhiibatay waa tani qaado amaanada ilaahay aad u dhiibatay culimadu waxay dhaheen ninkaasi hadduu odhan lahaa ilmahan iyo hooyadiiba ilaahay baan u dhiibtay wuxuu u imaan lahaa hooyadii ilmihii oo nool laakiin ilaahay qadarkiisa hore bay u qornayd inay maamadu geeriyooto wuu ilaaway taasoo muu odhan ilmihii wuna ku gaabiyey waxaad ogaataa aan qisadan u dan leeyahay inaan soo guuriyo waxaad ogaataa waxaad ilaahay u dhiibato ilaahay haddaad tala saarato allah haddaad isku hallayso marna ma hoogaysid marna dhibaato iyo walwal ha ka fakerin haddaad alle isku dhiibtay mahmaha carabiga waxay tahay man wajada allaha fama faqad waman faqada allaha fama wajad qofkii alle hela muxuu ka maqano uu waayay qofkii alle waayana muxuu haystaayo uu helay haddaad alle isku dhiibto oo qalbigaaga iyo camalkaagaba aad alle ku xidho ma hoogaysid mana guul daraysanaysid aamin allah subxaanahu wa tacaala oo ku xidhnow oo isku dhiib wey qisadan waxaa akhriyay sheekh fadiilatu sheekh saalix almaqaamisi aan idinka tago sheekho qisadan inoo warinaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh